السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا قال جامل فاتوني كجوكتين سود هذا هل كان قد ديهانيسين وعياني تاركسن وتاوشوا عن ولا لهيجا إن ومركل يعنيتو وعنيت محينيسته إن أصحابي هرتوا حاوي دبعتوين كتمر كهستا يا دنيا كسو بدنا يو إن كنت أجرسنا ولا شيء ده هو ترميل والبو أيا لك كاريا وعدالة تعالى waxaa dhibaatada loo geystaa iyadii hooyadeeda jirigtilka waxaa dumarkii meel walba waxay ku yihiin kuwa la iska dhibaateeyo oo dhibane dadka ay dhibane u noqdeen ha noqdaan dawlad ha noqoto shacab qof walba dhibane u yihiin ilaahay ha u gargaaraan leeyahay dumarka Soomaaliyeed aad baan ugu xumaa walaashay hoodo iyo hooyadeed wixii soo gaaro hoodo Grace ilaahay waxaan leeyahay u boogadhayo waxyaalaha dhibaato ku dhacda marka asxaabe fadlan hadoo channelka kugu cusub yahay please subscribe noo saar hataa hore ila joogtina walaal hayga baqeen like-ta bariyan waxaan arkaa asxaabteyda qaaliga like-ta ba baqeeleysiin lacag ma kadneen dhacdhaca ku sii maxaan iga kaltan subscribe kan lacag niga ma kadneen taawasho wacan qaybta ka hadlayso walaashayda roodo oo jawaab anaga dhibaatada nagu taala iyo hooyaday feerjiribka lagu garaacay iyo aniga dhibaatada iyo diilnimaha wajigayga loo geystay ayay farayaad inaan hadlo waxa weeyaan aniga dhibaatada shidaalka igu shubanaysa idinkan waxa shidaalka isku shubanay idinkoo darajooyin la aniga inaan yara isasoo kay wadaag taagteen waxa weeyaan inta dadka ciidanka tiraadaan dadka soo cuna marka damada dadka Soomaaliyeed ku shaambadaysaan Soomaaliyeed dulmi ba xuduudo u kala samaysateen oo la haydeen dulmi baa nagu dhacay anagu dulmi dhacayna garan mayne dulmigii baa anaga maanta nagu dhacay asheegi jirteen dib ku beelu ka jira anagu maanaan aragay musabixi markii aniga aabahay la diray 1994 wasiirka arrimaha gudaha ayuha iyo amniga maanta markii aniga leeyahay xabad nasiib wanaag bagaan xabad kugu dhixina wallaanta u sareysa ee wadanka madax meel ka sareysa oo la taabtay ma jirtay Faysal Xiis hadaladiisa waxa kamid ahaa hoodoy lama soo xiriirin hogaanka cabashada war hogaanka cabashada ilaahay baan ku dhaariyay inta gar qaadaan oo gar islaam qaadaan bal dadka dhexnoo ahaado hogaanka cabashada may jananka ku xigeenka ciidamada ay ku simii jananka ciidamada ay wadanka ka si jananka aba ka sareeyo ka udhi mise hogaanka cabashada sareeya warna garso baaritaan madax banaan baarinkayga lagu sameyn doona wixii nagu dhacay baaritaan madax banaan iyo komishanka xuquuqul insaanka iyo garyaqaanada iyo warbaahinta iyo eheladayada ayaa ka hawlgali doona hadaa inta dadka tacadidaan shaarar kale u xidhaan hadaa inta dadka tacadid waxa muuqaalka ka xiga aan anigu halkan u soo galo maxaan ku dhahdaayay waxa iyaga waxba laga qaban waayo aan barta la soo istaago waana urbaadaysaane waxa idaan naga filaneen baa naga keenan doona waana calool baadaysaane waxaan umadu naga filan dhagay fard la yiraahdo waxa barateen dad inta dhibaataysan carari mayna ilaa aan aarsano carari maayo ilaa inanka iyagu inanka yaraayo hooyaday feerjiribka ku garaacay qabto feerjiribka soo garaaco waa wallahi inaan carari oo aanan argaysan ku dhalanay ka tagay oo aanan dadka gardaamisana geeriyaha waalidkood iman waayay aanan kamid noqonaynin oo aanan dhibaatada iyo tacadiga sheegaysan ma in dadka cuqdadaysan ee waxba barin lagu sameeyay gura ku biirnaan doonaysan war xaq qofku halku xaq darro ku dareema dib ugu filan cadaab maanta hargeysa ka weyn oo aan gali lahaa garan maayo hooyaday baa la igu hordilay warin hooyaday feerjirib lagu hor garaaco oo hortayda lagu dilo waxaan ka jecelahay inay xabad inagu dhacdo garsoorka jeegaysa ila tigsa Faysalow irka hadad ila baxaysa ila bax Faysalow arrinka hooyaday iyo arrinka aniga igu dhacay midna hoos ma dhigayo ma libiqsan doono dhibaatada iyo tacadiga iyo dulmiga naloo geystay kama libiqsan doono halka u sareysay cadaaladda isla gaari doona cadaaladda ilaahay baan isla gaari doona cadaaladda caalamka dhex wareegaysa ictiraafka ku weydeen ayaan isla gaari doona meel kasto oo aan isla yahay hiil iyo garabaad ka helaysa ayaan hiil bidi doona ayaan garabka soo saari doona cadaawadda Soomaaliland noo gelinaysaan ayaan falowgeeda qaban doona Faysalow anaga dhibaatada nagu taala iyo hooyaday feerjiribka lagu garaacay iyo aniga dhibaatada iyo diilnimaha wajigayga loo geystay ayay farayaad inaan hadlo waxa weeyaan aniga dhibaatada shidaalka igu shubanaysa idinkan waxa shidaalka isku shubanay idinkoo darajooyin la aniga inaan yara isasoo kay wadaag taagteen waxa weeyaan inta dadka ciidanka tiraadaan dadka soo cuna marka damada dadka Soomaaliyeed ku shaambadaysaan Soomaaliyeed dulmi ba xuduudo u kala samaysateen oo la haydeen dulmi baa nagu dhacay anagu dulmi dhacayna garan mayne dulmigii baa anaga maanta nagu dhacay
أشياء كتير دي كبيرة كتير أنا قم أنا رجع مصبيح مركي أنا جابها إلى درن 1994 وتصير كأرميها جودها أيوها يا أمنية ما أنت مركي أنا قال لي حفظ النسيب هناك بقى أنا حفظك وقول حنا والله أنت قص الرئيسية ودن كم ضح مالك كسر الرئيسية ولا تعتمد شرتي فايز الحس هذا الذي سوى حكم ذها هذاي لما يصح حريرين هجانك عبشة ورهجانك عبشة إلهي بان دكو دارين تكر قادان أو جر إسلام قادان بلدك كده هذا هجانك عبشة ما شنك حجانك إذا ما ضايت كسمي شنك إذا ما ضايت ودن كبا كسي شنك عوا كسرية كودي بس هجانك عبشة سرية وأنا قرص بارتان مدح بنان بارن كي قالوا قصمين دونا وحين نقول عي بارتان مدح بنان يكمشن كحقوق الإنسان يو قرية قاندا يو ورباهنتا يهلا يدا أي كاول قلي دونا هذا أنت دتك تعديدان شارك لو وحدان هذا أنت دتك تعديد واحد موقالك كاحجة أنا نقول هالك وصاقله محنكود هذا واحد يجوا وحبلك قبل وعيو أمبرت على سو يستاجو وأنا ورباعي ساني واحد أنا قفلني بنجا كني من دونا وأنا على الباري ساني وحنا مدنا قفلنا دقي فرد لا يلاحظوا وحبرتين ضد أنت دبعتي سان عراري ما ينيل أنا وارسنو عراري ما يلا هنا كيجوا هنا كي رايه هو إذا يفرشيل بكو قراعي قبض فرشيل بكسو قراعه والله هنا أنا عراري وأنا نرجسون كل اللي نكتجي وأنا دك قردام سنة جريا والد كود إمام واعي أنا كميد نقوليني وأنا دبعت هذا يتعدق شيء جسنا ما عندك عقدة سنة وحلا برن القسم إذا قر كبرنا ندوني سان ورحق قفكوا هالكوا حق دركوا در ما دبوا قفلا عذاب ما تهرجيسه كبوين وأنقل لها قرن معيو هو يذي باليجو هردلي وارين هو يذي فرشيل بلوجور قراع هو تيجي لجودلو وحنا كتش الله ينحب هذا نقول عضو كرسور كتشاقي سيلا تكسف فيصلوا إركع تدي لبح سيلا بح فيصلوا أرنك هو يذي أرنك كان يقول عاي مدنا هو اسمه دقيو ما اللي بيقصد دانو دي بعتذي يتعدي يدل ميجان لوجيستي كما اللي بيقصد دانو هالك أسر رئيسي عدالة دين إسلا جاري دونا عدالة إلهي بين إسلا جاري دونا عدالة عالم كده وراجع سنة اعتراف كويدين أيين إسلا جاري دونا مالك صو عن إسلا هي جربت كهلسة أيان هي بدي دونا أيان جرب كتصور صاري دونا على ود الصومالي لأن نوجل الإنسان أيان فلو جدا قبل دونا فيصلوا برجع جي كي يقول تيسو كي يقول تيسو شنو ودكتي أظن صور يفتاجين إذا نجا ملاها نوجا صاحب هذا الشو ونكى فلقى لحدي سنقول بعدي يدي كما كرتاج هذا الموبايل ذي كان النمبر كي جراعي النمبر كيسي نمبر كي كتشرو سو قد على عصا لقى أي قرب كاجة تاجنا أستاذ لقى هلا يلقولها وحاده عبد المذوبي واركده إذا هي مرجع حمس عمر كشوجنا فري إلى هي مرجع سي مرخاتي سجناها فرو إن كاجران ما يو وقف إسلام وماشي تاجنا كده إذا هي إذا كامر قادن كريو واركده هي قبل كعنت ورن كري أي هذا ماشي محن كل هذا هي كسوجر تاجنا marka hadii iskarbistaagay iskarabsi hadii aniga abaay xabaal ka soo hubsateen oo istiraadeen waa agoon oo istiraadeen cidin ka daba hadli mayso oo istiraadeen cidin saag mari mayso oo hablaha caarka maalin walba intay dishaan oo xidxidaan oo baabaasataan halka la soo istaagtaan oo maxaan ku dhahday wixii shalay toole alaayden waanu ka dagaalan waxa ka dagaalanteen anagu ma aanan arag waxna lamiidaan wadaagin cuqdad baa meel la soo fadhidaanay tii anaga nagu hagardaamisaan oo nagu dishaan adar manihin anagu dad aamusaya in kurka hore hadii la jiro kubabka meermeersha man ku dhimanaa inta hadii la jarayo xaqigii xaq hooyadii kama aamusi doono kamana gaabsan doono annaga nidis nootaayada waan saxeexayna nootaayada lacagteeda ana bixiyay in nootaayada qoran Cabdi Madoob ay igu kalifay nootaayada maanta say soo horayso aabay kugu tahay shay mooyin Faysalow shay mooyin la faaga inaad u qajishay la faaga inaad xishootay inaad maanta annaga na tiraado garsoorka la waafajinaya garsoorku wuxuu eegi doonaa waxaan qabno iyo waxay dadku qabaan laamaha garsoorku jananku ma taliya garsoorka isku keenkeen hadii garsoorka laftiisu nadow marin waayena geedna xidid la'aan ma baxo walaalkay ay hooyaday dhashay ayaa hooyadii kaliin dabada ula taagnaa cid u soo gelin weyday waxa weeyaan anagu manihin dad inta la jirqsado la baabiyeeyo ama meesha ka carara ama hoos u hadli kari waay war dulmiga saldhigyada ka jiro Ilaahay nagu iftiiminay dulmiga iyo tacadiga dadka ku haysaan iyo duqaanada
iyo dhibaatooyinka saldhigyadiina yaaliya nadaafad darrada ayuu ilaahayna tusayay subxaanahu wa tacaala war afkii ummaddaannayo waanu hadlaynaa inta annagana gaadhay baa u sahlan waxaa ciidanku sameeyo anshuxumo caynkaas iyo arxandarro caynkaasaba maalin walba ku dhacdo haweenkii iyo hooyooyinkii iyo inamadii iyo ragga war waxa weeyaan waxa iyaga annaga marag cad buu yeeshay xarumaha garsoorkaanu la tegaynaa faysal waa dii lagu yidhi hadal oo annaga adigana lagu soo kaa gudbay xaqayga laguguma gudbi karo nabaradayda laguguma gudbi karo waxa nagu dhacay laguguma gudbi karo waana urbaadaysaa waxa maanaan oran waanu hadli doonaa waanu calool hadli doonaa waanu hadli doonaa waxa naga raadinaysaan baan oran doonaa facebookyada maanta waxay dadku qaadaadhigayeen inaad tidhi waxa iigu argagax badnayd oo iigu naxdin badnayd maalintii qarxii soo badhacay waa runtay degeerida abahay baa ii soo raaci lahayd oo maan joogmaan 12 bilood baan jiro waanan garanaynin maalintaasna maalin qof kasta oo islaam oo damiirli ka damqaday hay maalinta dad iyo ciyaal anaga nagu soo kabaysaanad ku tiraadaan ciyaal oo hadla waxa tiraadaan halkaas aan laga raacay anaga ma hataas cidad noon isbaynaysana anaga xidhiid nagama dhaxeeyo cuqdadna anagu ma qabno bulshada Soomaaliyeed naadir ma kala jecelin hadal intaas aan ku soo gabagabeeyay